sheekadu waxay ka bilaabataa tuulada Reesambool halkaas oo dadku ku baran jireen cilmiga kiimikada ee alkemi. Cilmigaas wuxuu ahaa mid xitaa birta dahab ka dhigi kara. Dadka qaar waxay isku dayi jireen inay dad dhintay dib u soo nooleeyaan, laakiin waxaa la sheegi jiray in khaladaadka halkaas ka dhaca ay masiibo keenaan. Waxaan baranaynaa laba geesi oo tan iyo yaraantooda baranayay cilmigaas, kuwaas oo la yiraahdo Edward iyo Alphonse. Waxay tijaabooyin ku samayn jireen iyagoo isticmaalaya buugaagta maktabadda. Maalin maalmaha ka mid ah waxay sameeyeen toy ciyaar, waxayna u ordeen inay tustaan qof ay aad u jeclaayeen. Si lama filaan ah, qofkii ayaa wadnuhu istaagay, halkaasna ayuu ku geeriyooday. maadaama aysan jirin cid kale oo daryeesha, Edward wuxuu soo jeediyey inay cilmiga alkemi u isticmaalaan si ay qofkaas dib ugu soo nooleeyaan. Alphonse wuu ka labalabay isagoo uga digay khatarta iyo masiibada ka dhalan karta, laakiin Edward ayaa ku qanciyey. Waxay soo ururiyeen dhammaan qalabkii buugga ku qornaa, waxayna dhigeen gudaha goobo sixir ah. Isla markii ay bilaabeen akhrinta ereyada sixirka, tamar aad u xoog badan ayaa ka dhalatay goobadii, taas oo abuurtay duufaan cabsi leh oo burburisay gurigii oo dhan. 20 sano kadib, Edward ayaa la arkay isagoo eryanaya nin wadaad ah oo haysta dhagax cas oo sir ah. dhagaxaas waxaa loo haystay inuu yahay kii la yiraahdo Philosopher Stone, kaas oo qofka u sahlaya inuu wax kasta sameeyo isagoon dadaal badan bixin. Wadaadkii wuxuu dhagaxii u isticmaalay inuu ku soo saaro tiirar waaweyn oo uu ku weeraro Edward, wuxuuna ku sii daayay bahalo yaab leh. Markaas ayuu Edward soo bixiyey qorigiisii sixirka isagoo muujiyey inuu isna yahay xeel dheere. Isla xilligaas waxaa soo muuqday nin u eg robot oo bahaladii mid u laayay. Markii koofiyadii ka dhacday, waxaa la arkay in robotku uusan jir lahayn. Edward laftiisa wuxuu lahaa gacmo iyo lugo bir ah, waxaana loo bixiyey magaca Full Metal Alchemist. Edward ayaa feed ku dhuftay wadaadkii, dhagaxiina wuu ka dhacay. Wuxuu mooday in hawshii u dhammaatay, laakiin Corneille Mustang iyo askartiisii ayaa yimid, waxayna xireen wadaadkii iyo Edward. Markii Edward uu farta ku fiiqay dhagaxa, Corneille Mustang wuxuu u sheegay inuu ahaa mid faalsada ah. Edward aad ayuu u niyad jabay, waayo sannado badan ayuu dhagaxaas raadinayay si uu u soo celiyo jirka Alphonse iyo xubnihii isaga ka maqnaa. Ninkii robodka u ekaa ayaa haddana soo muuqday, waxaana la ogaaday inuu yahay Alphonse. Kadib waxay wada gaareen xero military, halkaas oo Corneille Mustang uu ku sharaxay in dhagaxa Philosopher Stone uusan jirin. dhagaxii uu wadaadku haystay wuxuu u shaqaynayay awoodo gaar ah darteed. Si kastaba ha ahaatee, Edward weli wuxuu aaminsanaa in dhagaxu jiro, wuxuuna nidar ku galay inuu raadiyo. Isagoo sii socda, wuxuu la kulmay saaxiibtiisii yaraantooda ee Winry. Markii ay maqashay sheekada, Winry waxay u ballanqaaday inay ka caawiso raadinta. Dhanka kale, wadaadkii ayaa ka baxsaday militarigii, wuxuuna gaaray qol qarsoodi ah oo ay ku sugayeen 3 dambiile. Hogaamiyahooda oo la yiraahdo Lust, gabadh dherer badan oo la yiraahdo Envy oo wejiga beddelan karta, iyo wiil la yiraahdo Galatoni oo wax kasta liqa. Lust ayaa aad u xanaaqday kadib markii uu wadaadku ku fashilmay hawshii, waxayna u isticmaalay gacmaheeda dhaadheer inay ku ceejiso ilaa uu ka dhinto, kadibna Galatoni ayaa liqay oo cunay gebi ahaanba. Edward markii uu seexan waayey, wuxuu xasuustay wixii dhacay 20 sano ka hor. Wuxuu xasuustay markii loo kaxaystay albaabka xaqiiqada, halkaas oo aqoonta caalamka oo dhan ay ku qarsan tahay. Markii albaabku furmay, gacmo cabsi leh ayaa gudaha u jiiday. Edward wuxuu dhex duulay hawada sare, wuxuuna arkay qofkii ka geeriyooday. Wuxuu isku dayay inuu taabto, laakiin markiiba albaabka ayaa laga soo tuuray. Hadda wuxuu lahaa aqoon buuxda oo dhanka alkemi ah. Ishadii waxaa u yimid qof u eg had oo uga digay in si qof dhintay loo soo celiyo xubin jirka ka mid ah in la bixiyo. Si uu u soo celiyo qofkii uu jeclaa, Edward wuxuu bixiyey lugtiisii. Markii uu kacay, lugtu way ka maqnayd, Alphonse-na meelna ma joogin. Wuxuu dareemay in Alphonse uu naftiisa u huray qofkii dhintay. Isagoo ku soo noqday goobadii sixirka, wuxuu halkaas ku arkay wax fool xun oo aan u ekayn qofkii uu rabay. Isagoo xanaaqsan, wuxuu qabtay dhar bir ah, armor, wuxuuna sameeyey tijaabo kale si uu u soo celiyo Alphonse. Albaabkii xaqiiqada ayaa haddana u furmay, markana wuxuu bixiyey gacantiisii si uu u badbaadiyo saaxiibkiis. Markii uu miyirsaday, Alphonse wuu noolaa, laakiin wuxuu ku dhex jiray dharkii birta ahaa. Hadda Corneille Mustang ayaa Edward, Alphonse iyo Winry u kaxaystay meel ay kula kulmaan nin la yiraahdo Tucker, oo ah xeel dheere laga yaabo inuu wax ka og yahay dhagaxa.
Tucker wuxuu tusay dhowr waxyaabood oo uu isku daray xayawaan ahaan. Edward iyo Winry waxay haddana u safreen magaalo kale iyagoo tareen saaran si ay ula kulmaan dhakhtar Marco, kaas oo la sheegay inuu sirtu hayo. Laakiin markii ay gaareen gurigiisii, Marco ayaa bilaabay inuu rasaas ku rido isagoo moodaya inay cadow yihiin. Edward wuxuu ku qasbaaday inuu miyirka ka saaro Marco si uu u badbaado. Markuu miyirsaday, Marco wuxuu kula taliyey inuusan raadin xaqiiqada dhagaxa. Si lama filaan ah, Marco ayaa arkay wax, wuxuuna rasaas ku riday daaqadda. Waxaa soo baxday in dambiilaha la yidhaahdo Lust ay basaasaysay iyaga. Inkasta oo uu xabado badan ku riday, haddana waxba ma noqon. Lust ayaa dadkii oo dhan gidaarka ku dhejisay, waxayna tooray ka mudday Marco laabta. Ka hor intaanu dhiman, wuxuu Edward u sheegay in sirtu ku jirto laboratori shanaad oo ah meel qarsoodi ah oo militarigu leeyahay. Edward wuxuu markiiba aaday gurigii Tucker, wuxuuna halkaas ku arkay in Tucker uu isku daray gabadh yar iyo ay si uu bahal uga dhigo. Tucker wuxuu qirtay inuu tijaabadan u huray dad uu aad u jeclaa iyo xubno qoyskiisa ka mid ah si uu nolosha wax uga ogaado. Edward oo xanaaqsan ayaa garaacay Tucker, waxaana laga yaabaa inuu dili lahaa haddii uusan Alphonse soo gaari lahayn. Tucker waa la xiray dembigaas awgiis. Edward toddobaadyo ayuu buugaag raadinayay si uu wax uga ogaado laboratori shanaad, laakiin waxba ma helin. Maalin dambe, jenaraal ka tirsan militariga ayaa u sheegay in meeshaas ay tahay meel kayd ah oo hore oo aan hadda la isticmaalin. Edward iyo kooxdiisii ayaa halkaas aaday. Dhanka kale, kabtan militari oo baarayay meeshaas ayaa ogaaday inay tahay goobo sixir oo aad u weyn, laguna samaynayo tijaabooyin khatar ah. Wuxuu isku dayay inuu u sheego madaxdiisa, laakiin Lust ayaa hor istaagtay. Kabtankii ayaa si dirqi ah ku baxsaday, laakiin Envy oo iska dhigaysa Cornel Mustang ayaa timid oo dishay. Qorshuhu wuxuu ahaa in dembigaas dusha ka saaraan Mustang, waana u suurta gashay. Mustang waa la xiray, xeeldheeraha waalan ee Tuckerna xabsigii ayuu ka baxsaday. Edward iyo saaxiibadiis ayaa iyana la xiray, laakiin si caqli leh ayay uga baxeen, waxayna u carareen laboratori shanaad. Halkaas waxay ugu tageen Mustang oo la dagaalamaya Galatoni. Mustang ayaa gubay Galatoni, laakiin waxaa soo baxday inay ahayd Envy oo iska dhigaysa. Lust iyo kooxdeedii ayaa yimid, waxayna tooray ku dhufatay Mustang. Edward ayaa eryaday Lust ilaa uu galay qol weyn oo leh goobo sixir ah. Halkaas waxaa joogay Tucker oo haysta dhagaxa Philosopher Stone. Wuxuu sheegay in militarigu ay dhagaxan ku sameeyeen dad maxaabiis ah. Lust ayaa dishay Tucker kadib markuu sirta sheegay. Generaalkii sheekada ka dambeeyey ayaa yimid, wuxuuna sheegay inuu rabo ciidan robot ah oo aan dhimanayn. Wuxuu shiday robotyadii, laakiin markiiba waxay u soo jeesteen dhankiisii waana cuneen. Dagaal weyn ayaa qarxay. Mustang, Alphonse iyo Winry ayaa ku soo biiray dagaalka. Waxay ogaadeen in robotyada madaxa la isu garaaco si ay u dhintaan. Inkasta oo ay kumanaan yihiin, haddana waxay bilaabeen inay mid u laayaan. Mustang oo dhaawac ah ayaa xamaasad weyn ku gubay Envy, kadibna wuxuu weeraray Lust. Inkasta oo ay iska daaweynaysay dhaawacyada, haddana Mustang wuxuu awood u helay inuu ka soo bixiyo dhagaxii ku jiray laabteeda, taas oo dishay Lust. Ugu dambayntii, Mustang ayaa dhagaxii siiyey Edward. Edward wuxuu dib ugu noqday albaabka xaqiiqada, halkaas oo uu ku arkay Alphonse oo jirkiisii caadiga ahaa qaba. Laakiin markii uu rabay inuu dhagaxa bixiyo si uu u soo celiyo saaxiibkiis, wuu ka labalabay. Wuxuu ogaaday in nolosha dad badan loo dumiyey si loo sameeyo dhagaxaas, mana rabeen inay ku noolaadaan dhibaatada dad kale. Wuxuu go'aansaday inuusan u isticmaalin danta dabiiciga ah. Markuu soo laabtay, Alphonse waa uu cafiyey, waxayna isku raaceen inay ka fogaadaan cilmigaas dhibka keenay. Waxay bilaabeen nolol cusub oo nadiif ah. Haddii aad ka heshay filimkan, ha ilaawin inaad like saarto fiidiyowga, share garayso, kanaalkana subscribe dhahdo. Kanaalkan xogta filimada waxaan ku soo gudbin doonaa qisada filimo xiiso leh. Haddii aad rabto inaan soo koobno filim kale, noogu soo qor kommentiska. Ku mahadsanid daawashadaada, waxaan isku arki doonaa fiidiyowga xiga.